عليكم walaalayaal waa idin salaamay dhamaantiin meel kasto aad igala socotiin maanta waxaan hayaa topic aad u muhiim ah oo in badan su'aalo la iga weydiiyay waxaana weeye rag badan waxay dhahan kadib markasta oo ay damcaan inay cuntada iska bedelaan cuntan fiican cunaan jimka aadaan usbuuciya kadib way ka quustaan wayna iska dhaafaan maxay tahay sababtu waxa ay tahay waxa aad u bilaabaysaa si khaldan hadii aad jimka bilowdid cuntadana bedeshid waxa dhamaad isku dayda inaad samaysid hal mar waxa kugu jirkaaga waxa ku dhacay overwhelming waad ka daalaysaa waad iska dhaafaysaa aniga ayaa ku sheegay qaabka ugu wanaagsan oo aad u bilaabi kartid qaabka ugu wanaagsan oo u bilaabi kartid waxa weeye inaad marka koowaad cuntadii iska saxdid cuntada marka iska saxdid waxa laga doonayaa inaad cunto nafaqo fiican leh oo protein fiican leh sidoo kale waxa laga doonayaa inaad vitaminada qaadatid khudrad fara badan cuntid kadib markaas sidoo kale waxa laga doonayaa intaad jimka bilaabeen inaad hurdada iska saxdid ugu yaraan 7 saac ilaa 8 saac oo hurdo fiican oo quality leh inaad seexatid kadib markaas jirkaaga wuxuu soo saarayaa hadii waliba aad nin raga tahay testosterone ku filan ayuu soo saarayaa testosterone waa maadada ama waa hormoonka ugu muhiimsan ninka raga jirkiisa waxay qaabilsan tahay dhammaan raganimada geesinimada wax kasta oo ninka raga laga doonayo testosterone ayaa qaabilsan kadib markaas markaad cuntadiisa xadid si fiican u seexatid waxaad yeelanaysaa awood iyo hami aad waxyaabo badan ku sameyn kartid daalkii ayaa ka yaraanaya cuntooyinka xumaa qashinka oo craving u yeelanaysid ama aad jeclaanaysid ayaa ka yaraanaya hamigaas iyo awooddaas waxaad yeelanaysaa inaad jimka aadid sidoo kale waxaad yeelanaysaa awood aad u fara badan oo aad jimka ku sameyn kartid taas waxay ku qasbaysaa jirkaaga inuu murqo yeesho caloosha kugu baxdana ka yaraato marka qaabkaas waxa weeye qaabka ugu wanaagsan videoyal kale waxaan ugu sharxi doonaa cuntooyinka ugu muhiimsan ee testosterone-ka lagu soo saaro iyo sidoo kale supplementiska waa mahadsantihiin